سؤال شكوى شيخ فاضل وحلال هاي محيدين توقع وقش هاي إن على تعامل يهود تسخير الله هاي المعنى علينا مقع يهودين أو بحكرة صدق نتنياهو وكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. horta yahuud gaar ahaan ama caam ahaan dadka kufaarta ilaahay baa inoo tilmaamay qur-aankana way ka buuxdaa waxay yihiinna ilaahay baa inoo bayaamiyey wax iminka yimidayna maaha wax iminka cusub oon hadda dee fahmaynana maaha ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum ilaahay wuxuu yidhi raalli kaa noqon maayaan yahuud iyo nasaara ilaa aad raacdo diintooda macnaha hal xaalun bay raalli kaaga noqonaya inaad diintooda qaadato xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhudaa hanuunka ilaahay un baana hanuun ah hanuunka dhabti waa ka ilaah kabacdi ilaahay rasuulka wuxuu ku yihi walain itabacta ahwaa'ahum bacda maa jaaaka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir nebi maxamed baa laleeyahay haddaad hawooyinkooda raacdo rasuulkii baa lagu leeyahy haddaad hawadooda raacdo rasuulku maba raacayo laakiin dee waa risaalo u socota ummadiisa haddaad dariiqooda raacdo ama hawadooda aada raacdo cid kuu digaysa melihid iyo cid kuu wax qabanaysa nasiir ku ah adilo badan baa qur-aan ku yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wanasaara awliyaa war yahuud iyo nasaaro ha ka dhiganina xigaale ha ka dhiganina cidda xigaale ka dhigata waman yatawallahum minhum fa inahu minhum cidda xigaale ka dhigata oo idinka mid ihi dee iyaguu ka mid yahay marka adilada qur-aankay ku taalo ilaahay baana inoo bayaamiyey inaanayna marnaba wanaag aanay kuu siinin waxay iminka yaal tafaasiirtaad kusoo qaadateen axaadiista rasuulkaad kusoo dhigateen asmaadooda in lala baxo sharcigu ma ogola waa baatil weeyaan waa nooc ka mid a xigaala ka dhigasho weyn in iyaga magacdooda in lala baxo waxaasoo dhanba sharcigu ma ogola marka ama waxaa la idhaha alcalaaqa in calaaqaadka waxaa la dhaha maanta calaaqaadka duwaliga ama mayne calaaqo siyaasadeed calaaqa diblomaasiya la idhaha inuu dowladi islaam iyo dowlad gaala la yeelato taasi iyada waxa weya culimada hore uga hadleen taa lafteedu wax cusub maaha way ku jirtaa kutubtay ka buuxdaa kutubta fiqiga waa masaa'ilka ay culimadu ka hadleen waxay yidhahdeen markaa culimadu wixii diintaada waxyeelaya calaaqadaasi waa in horta la hor dhigo dad u khubara adee oo dee masaladan aan ka hadlaynin oo mushaawaradun bay ka mid tahay wixii markaa wanaag ah maslaxad ay kuugu jirto adiga haday maslaxa ay kuugu jirto calaaqadooda mafsadadoodana aada iska ilaalinayso dhib male bay dhahay laakiin haddii calaaqada aada la yeelanayso mafsada ka dhalanayso ay dhibi ka dhalanayso maslaxada kuugu jirtaana ay aada u liidato ama mayne maslaxad baa kugu jirto ama kumaba jirtaba maslaxa ama way ku jirtaa waxaa ka badan dhibta iyaga xaggooda kaa soo gaadhaysa marka lama ogola yidhahda culimadu marka taasina waa masalo ay culimadu ka hadleen oo sharciga ku bayaansan wax iminka taasina joogta ma aha marka laba marka hala kala saaro raadsiga qofku raadsanayo in ictiraaf oo kale in la raadsado oo loo hawl galo iyo waa in la kala saaro kalgacalka gaalada la siinayo waa laba kala masalo weeyaan eega masala tusaale ahaan waxaan arkaynay dhalinyar calanka intay dhulka dhigeen calankii markaa waddankaasi calaaqada lala yeeshay ku sujuudaya arrintaas maxay tilmaamaysaa marka in calankaa lagu sujuudo calan yahuudiyad in lagu sujuudo culimada caqiidadu markay ka hadlayaan masaa'ilka lagu gaaloobo markay ka hadlayaan waxaa ka mida bay idhahdaan qofku inuu u sujuudo liqayrillahi qofku hadduu liqayrillaahi u sujuudo islaamka uu ka baxay yahay
wuxuu u sujuudaya wuxuu doonay ha noqdo marka liqayrillahi looma sujuudo waa midda kale adiguba kaaga kuma sujuudayeen mana weyneynayeen marka labadaa masalaha la kala saaro wixii maxabo ah kalgacal iyo wuddi tilmaamaya iyo wixii xidhiidh markaa lala yeelanayo ama xidhiidh siyaasadeed ha noqdo ama ku ganacsi ha noqdo taasi waa arrin maslaxada ku xidhan waay waa mamnuucna lama odhan karo waa la ogol yahayna lama odhan karo waa masalo u khuduucdan had iyo jeer masaalixda iyo mafaasidda oo ay tahay dadka ehelka u yahay inay isku miisaamaan laakiin wixii kalgacal iyo jacayl iyo weyneyn iyo ixtiraam sharcigu ma ogola labada baab waa inay inoo kala caddiyin oo inoo kala saarayin masaa'ilkaasina saas u bay noqonayaan